حق iyo baatilku waa hirdimaya dadna khayrka ayay furayaan si u yihiin dadna sharkay furayaan magaalada Burco xarunta waa gobolka Togdheer waxa mamnuuc ka ah in lagu qabto bandhig faneed ama show balse 8 sano kadib magaalada Burco waxay martigelisay bandhig faneedyo kala duwan kuwaas oo ka dhacay goobo kala duwan culimada gobolka xukuumadda iyo bulshada magaalada ayaa meel uga soo wada jeestay in Burco noqoto meel ay mamnuuc ka yihiin qaacyada la tumo ee dadka laga qaado lacag kala duwan si ay u galaan goobta bandhigu ka dhacayo balse dhammaan waxyaabahaasi maanta ma jiraan oo si toos ah ayaa wiilal iyo gabdho isku jira uga dhex ciyaarayaan bandhig faneedkan Dr. Xasan Sheekh Ali Warsame oo kamid ah culimada ugu caansan geyiga Soomaalida kuna nool magaalada Burco oo maanta si gaar ah ugu warramay telefishinka SBC ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in Burco ay martigeliso bandhig faneedkan waxaana uu sheegay inaanay ka aamusi doonin xumaanaha noocan oo kala ah ee magaalada ka bilaabmay isla markaana arintan ay ka balansan yihiin culimada magaalada iyo maamulka gobolka Togdheer xaqa iyo baatilku waa hirdimaya dadna khayrka ayay furayaan si u yihiin dadna sharkay furayaan dad khayrkay faafinayaan dad sharkay faafinayaan ilaahayna de diintiisa waa u hiilinaya waa u nusraynaya shaydaankuna sharkiisa isaguna waa faafinaya waana sunno Allah subhanahu wa ta'ala kankan ka abuuray xaq iyo baatilka inay hirdimaan marka de wixii u furan culimada insha Allah ta'ala ayaa da u furan haday tahay manaabirta inay kaga hadlaan ummadda inay u bayaamiyaan waalidiinta ay uga digaan fasaadka socda dawladda lafteeda aan laga hadhin heer ay u tahayba heer gobol heer qaran heer degaan waanaanu ku kalsoonahay in dadka khayrka jecel uu ka badan yahay dadka sharka doonaya culimaduna horay uga hadleen qabla ciidkii intaan ciidda la gaadhin in la farxo laakiin farxadda lagu xakameeyo sharciga islaamka salaadii ciidana markii iclaanaadkan ay soo baxeen hudalada qaar ay ka soo baxeen $10 in lagu galayo fanaaniin meelaha looga yeeray aad bay culimadu uga hadleen waa media kulli waa laga dhageystay intaana culimadu kuma joojine waxay isku dayeen maamulkii qaybihiisa kala duwanaa inay la xiriiraan bulshada qaybaheedii kala duwanaa inay la wadaagaan dadaalkaasina waa socdaa oo insha Allah ta'ala caawa kulan aad u weyn oo culimadii iyo ganacsatadii iyo dhaqankii madaxdii gobolka xubnihii la soo doortay golaha deegaanka oo maayarka iyo maayarka xigeenkuba ay ku jiraan kulan weyn baa insha Allah ta'ala hawsha ku saabsan loogu balansan yahay sidii aanu u baranayna in la wada shaqeeyo oo xumaanta dhinac looga soo wada jeesto ayuun baa insha Allah ta'ala filanayna inuu ka soo baxayo hadda sida dadka qaar ay ka sii hordhacayaan isbedelka dhacay waxa weeye ama doorashada dhacday inay isbedelka inta la keentay kuma qanacsanin waayo hawshu waa bilow haday de ku sii socotana markaas ay ku xukumi karnaa dibku inuu ka jiro maamulka cusub hadii de ay sidii loo wada shaqeeyana xumaanta laga wada hortagana wasaanu ka filanayno culimaduna si toos ah wali maayarka isumay qaabilin kulankii ugu horeeyay culimadu ay isugu yimaadeen hawshan ay kaga hadlayeen xalay buu dhacay waxaana lala xiriiray maayarka iyo ku xigeenkiisa waxa insha Allah ta'ala la isla qaatay kulan la isugu yimaado oo tala iyo tusaale la siinayo waxa noocaas oo kale ana laga wada hadlayo insha Allah ta'ala marka ilaa hadda cidda xukumi mayno kulli qof kasto muslima oo iimaan iyo damiir leh ummadda dhaqankeeda soo jireenka garanaya waa wax uu fahmayo xukunka ay leedahay diinta Allah subhanahu wa ta'ala kuma banaana fitrada saliimka ana aqliga saliimka ana waa wuxuu diidayo culimaduna way ka hadashay waana ka hadli doonaa insha Allah ta'ala Sidiq Xasan wabayo baynta SBC Burco abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus